muqdisho intaanan tagin kororta 3 usbuuc ka hor yaan la xiriiray xafiiska ra'iisul wasaaraha dhalinyaro la shaqaysan aan ku yidhi barnaamij baan rabaa inaan u imaado sameeyo waa barnaamij arrimo bulsho barnaamijkan haddaan sheego waa barnaamij ku saabsan ragga Soomaalida ee gabdhaha intay ama afduubtaan ama kufsadaan sawirrada muuqaalada ka duubay muuqaalada ku baahiya meelaha ama ka iibsada website-yada barnaamij siyaasadeed ma barnaamij arrimo bulsho waxaan la xiriiray niman dhalinyaro oo ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha 3 kamid ah waxaan ku yidhi 3 usbuuc ka hor baan la xiriiray ka hor intaan tagin way waxaan ku yidhi barnaamij baan rabaa inaan sameeyo barnaamijku arrimaha bulshada ku saabsan yahay barnaamij ku saabsan dumarka Soomaalida ee wax qaab darrada laga duubay ee meelaha laga iibiyo ama lagu bahdilo way haybada markii usbuuc ay ka dhimanta intaan tagin baan la hadlay ku yidhi tigirkayga iyo waxayga waan habaystay qof kale miyaan u baahanahay inaan la hadlo oo goraansho ka raadiyo waxay ugu dhaxeen ma uma baahnid anaga ku filan haddana waxaan u malaynayaa 3 maalmood markay ka dhiman tahay baan ku yidhi waan soo baxayaa ka waran cid kale miyaan u baahanahay inaan la hadlo maya anaga ku filan landa markaan ka soo baxay yaan la soo hadlay ku yidhi waan soo baxayaa intaana waxaad la xiriiraysaa waa rag xafiiska ra'iisul wasaaraha okay ragga magacyadooda ma sheegi ragga haddaan magacyadooda sheego waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Mustafa la yiraahdo xirsigaani oo wasiirka xafiiska ra'iisul wasaaraha ah iyo Abdi Shukri Haybe oo sawirrada u qaada Abdi Shukri kale waa nin iska dhalinyaro awood badan ma laha laakiin labada qof ee awoodda leh waa wasiirka xirsigaani iyo Cabdiraxmaan Mustafa oo muhiim u ah marka kalsooni bay ugu galay inaan imaado wax dhiba jirin markaan London ka soo baxay subaxii waan la soo hadlay waxaan ku yidhi waan soo baxay safarin baan u soo diray Nairobi dan transit ku ahaa fiidkii markaan soo degay waxaan Nairobi baan nabad imid subaxii markaan ka baxay Nairobi waxaan ku Nairobi baan ka soo baxaya markaan ka degay xagga waan soo degay baan ku yidhi kaar waxaan haystay hormuud ah oo hore ka gashay markii soo dhawow inta la ilaha wax dhiba ma jirin ana wax shaki badan ima gelin طبعا waxaan islahaa waxa laga yaabaa dad inay ku arbishaan airport markaan ka soo degay yarka immigration ka dadkii Jamaal soo dhawow bay lahayn ana waan la kaftamay waxaan lahaa dhulkii aan xoreeyay baan u soo noqday taasan kula kaftamay ninkii waa baxay bay lahayn dadku moogtahay waxaan rabaa inaan magaalada ku xaragoodo waxaan rabaa inaan dhaanto dirgax ku tunta Muqdisho taasan kula kaftamay dhalinyarada immigration iyo markaan soo maray meesha waa marka aad garoon ka soo degtay garoon ka soo degay intaan soo gudbay boorsadaydii baan soo qaatay si sharaf lan ku soo maray hotel airport ku yaala gudihiisa oo dakaala ay dhahan baan degay hotelka markaan sii galay yaa wiil igu yiri nabad sugidaan la shaqeeya oo orday iga dabeeyay assalaamu calaykum magaca markaasaan ku yiri waad garanaysaa magacayga maxaa tahay adigu nabad sugidaan ahay nin marka aniga isugayba halkan taagnaa oo yiri war maxaad rabtaa anaga ninkan og ma adiga og bas hay iska noqday hotelkan galay marka wax shaki ma qad xiliga marka shaki badan ima gelin waxaan islahaan dawaanin nabad sugida oo iska ka hadlayaa hotelkii baan galay check-in baan sameeyay qolkaygii baan galay qolkii markaan galay laba nin oo ninka marka iga soo daba ordayay iyo wiil kale oo la socda albaabkan ugu soo garaacay wiilkii ila joogay ee isugayay oo qolka ila joogay bay dhahan soo bax way kaxayaan markaa shaki galay ilaa markaa waxaan islahaa ama isleeyihiin bal ogaada Jamaal meesha u socday iyo xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan meesha aan u socday waxaas markii waxoogaa u maqnaa baan la hadlay telefoonka qaban waay ayagii oo socda labadii wiil oo socda ay u soo noqday hadana waxay ugu dhahan Jamaal amar baan la siiyay qolkaaga ka soo bixi waa subaxii 9kii iyo waxoogaa way 3 saac iyo waxoogaa daqiiqo markay saaleeyeen oo maxaa jiro amar baan la soo siiyay dhahan mahad arab diblaawa la dhahaa wiilkan askariga nabad sugidda kan marka hore ku imanay markii horeysay kan marka hore iimaanaya markan dambana wiilkaynaya markan dambana la socdo waa isaga teamkaas markaas iimaanaya isaga hormuud ah waa wiil sawirkiisa dadku soo dhigeen wariyaashu dhibaaba la dhahaa airport ku dhibaa oo la yaqaanaba wariyaasha Soomaaliya markii ay arkeen waxay dhaheen ninkan wuu maxaa la dhahaa mahad arab diblaawa la dhahaa
wariyaash aad bay uga calaacalaan marka teamka airport ka haysto madax ka team airport ka haysta adigu kuwaas ku jira teamka gabar ba haysata nabad sugidda laakiin asagu kuwa ugu ronroon ku jira qiyaastii masaa sahabas markiiba waxaan sameeyay xafiiskii ra'iisul wasaaraha ayaan wargeliyay waxaan ku iri saas baa jirta waxaa la yiri ma bixi kartid Cabdiraxmaan Mustafa markaa ugu hormaroon la hadlay wuxuu igu yiri dhib ma leh anaga la hadlay waan sugay isma sii dhibin waxaan isiri boorsadaada iska hagaajiso shaqadii aan u socday baan hawsheedii galay inaan dadkii la hadlo oo dhaho waan soo degay aan babalamiyo qof dadkan wareysanayay iyo wixii waxay kadib igu soo noqdeen haddana waxay dhaheen inaad joogtaan fiir ayaan hubinaynay waan xageen aad mudaqadan ka bood dabaqa afraad baan deganahay waxay dhaheen bas albaabkan ku taagnaanayna waan ku ilaalinayna war ma xaajira masaas xaaladdu culus tahay bas adniga marka Cabdiraxmaan Mustafa kii baan ku celceliyay waxaan inuu waxoogaa arintu waxaad moodaa amar kor ka yimid way marka mahad salaad baa amarka bixiyaa la yiri markaas hore iyo gabadh Xamdi la dhaho oo nabad sugidda airport ka haysata iyada markaas wiilashan albaabka ii taagan la soo hadlaysa waan maqlaa taliya Xamdi inay leeyihiin telefoon markay ku hadlayaan iyada telefoonka qabanayaan amar siinaysa adu markii waxaan u malaynayaa 2 saac meelahaas adigu qadadii ku dhadhaway ayaan dad kale la hadlay oo nidinimay waxaas baa igu dhacay xafiiska ra'iisul wasaarahana waan u sheegay waxaan idhi nimayahow nin wariye aan ahay meeshaan u socdana waan idin sheegay in hadda meel kale u socdo mee arrimo bulsho haddii aad leedihiin ama meel kale aadaa dawladaha qaarkood markuu shaki galo wariyaha qof bay raaciyaan la idhahan government minder oo kor ka ilaaliya soo raaciyaan ku dhib iguma hayso barnaamij arrimo bulsho way laakiin arrintan ma fiicna inay faraha ka baxdo idinkana ceeb ba idinku tahay anigana ceeb ba igu tahay